xaalada guud ee gobolka horta si aad ugu badii aad sheegtay gobolka dee xil anigu kama hayo hase yeeshee waa gobol aad iyo aad runtii qaali u ah oo aan jeclahay gobolnimadiisa muddo badan oo ku dhawaad 4 sanadoodna aan ka soo shaqaynayay run ahaantii waa gobol aad iyo aad u fiican hase yeeshee sida aad ogsoon tihiin waxa ka jiray bariyahan dambe in jabhadu ay ka dilaaceen isla markaasna maamul goboleedka Puntland qayb kamid ay u gudubtay waa runtii ayaan daro waxaan leeyahay wax alla waxay ka carareen nimankaasi gaar ahaan ninka caare ma garanayo gobolkan joogay dib lagu hayay iyo dib isaga wada taliyay ku xigeenka wuxuu ahaa militariga ayuu ahaa oo run ahaantii bandulaha militariga ee gobolka Sanaagna uu ahaa sida awgeed waa ayaan daro aad iyo aad u xun oo khariban oo aan wanaagsaneyn sida awgeed waxaan leeyahay hadiyadu ay sidaa tahay oo maalinkan Somaliland muddo dheer bay soo martay xorriyadeedii bay 1991 ay la soo noqotay shabad ba ka baxday waxaan leeyahay iyada oo aanan garsiinaynin oo runtii aan leeyahay boqolkiiba boqol waa qalad arintaas aan leeyahay haddana waxaan leeyahay shacabka iyo xukuumaduba ha isugu tagto sidii halka aan u dhaafi lahayn aad iyo aad baan runtii u danaynayaa inaanay dhaafin oo awood wixii la leeyahay ba la isugu geeyo laano de waxaanu nahay dowladda curdanka ah ee dadkeedu ay runtii u liidiirkeed ahaayeen wax badan aynu wada jirka kaga soo gudubnay sida awgeed waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku dadaalaya in badan midnimada Somaliland iyo dowladdiisuba iyo shacabkuba inaynu arinta soo afjarno oo ay dariiq ay tagayso lagu soo gabagabeeyaan leeyahay aad iyo aad baan u danaynayaa mar labaad waxaan leeyahay nimankaasi dee in ma garanaysaa ay wanaag oo lagu baadi doono oo baan anigu baaragtay aan soo jeedinaya